soo dhawaada dhammaan saaxiibayaal mowduuca muuqaalkan waxaa marka loo ciyaarayaa qof kale qofkan budget ahaan ama lacag ahaan waxaa kaga soo bilaabay $88 haddana balance ahaan waxaa haya $671 waxaana ku wada ballanay dabcan inaan gaarsiiyo lacagta muddo 6 saacadood gudaheed ah lacag gaaraysa $500 hadirtan almost $671 haya soo marka waxaa rabaa inaan hidgareeyo lacag $1,000 ah qofkana dabcan 500 sida uu ku qaato waqtigana dabcan almost uu dhamaaday oo 6 saacadood ah soo marka muuqaalkan gudihiisa rabaa inaan ku hidgareeyo $1,000 $671 haya kaliya waxaa iga dhiman lacag 400 keer oo ay $330 ah lacag gaariso soo marka algorithm-ka ku hidgareenayo waxaa rabaa inaan step by step muuqaalka kugu sharxo si walibana without risk ah oo hal game ama hal door aan ku qasaari doonin qofka muuqaalkan daawanaya si uu wax uga fahmana dabcan waxaa rabaa in step by step algorithm-ka ku hidgareenayo ku sharxo waliba aan qasaareynin game walba oo qaatana waa sharxi doonaa marka hadii tadawashada ku rido channelka waxa shashmada kaaga codsanayna jalka subscribe saarto muuqaalkan aad like saarto saaxiibadan la wadaagto game marka aad soo guda gasho si aad targetkeena u gaarno waliba si nabad ah laba mid muhiim inoo ah inaan ogaano hadirtan $625 dhiganayna game kan at least 1.5 oo gaari karaa soo marka 1.4 kaga dhiganayna sharaxaad sababta u joojiyo xitaa mar raba inaan focuskeyga lumiyo soo marka labada mid ee ugu muhiimsan inaan ogaano ee u baahanahay waxay tahay midda koowaad oo ah in focuskaada marnaba aad ka qaadin targetkaaga waxaa laga yaabaa inaad si fudud ku hidgareyso ama inaad dabcan si adag ku hidgareyso ee waqti kugu qaadato si fudud hadii aad ku hidgareyso macnaheedu ma aha in lacag walba aad si fudud ku hidgareyn karto tada targetkiina anaga $1,000 u ahaa almost first game targetkiina ku hidgareyn oo $1,000 ah hadii aad si ciyaarno oo emotion in qaado oo islaan 2,000 gaar xaqiiq waxa ah inaan qasaarino meeshan hadii aad balan ku soo gashay waxa fiican in balankaada aad hidgareyso xitaa qofka khibrad lahayn ama algorithm-ka aan akhrintiisa aqoonin waxa kula talinaya marnaba in targetkiisa uu lose gareenin oo dabcan emotion-ka uu qaadin oo balankiisa mar walba uu kala weynaado dabcan waxa uu ciyaarayo oo isaga aan la hogaamin oo dabcan isaga naftiisa uu hogaamiyo mid labaad oo noqonaysa in qofka algorithm-ka ama signals-ka uu wax ka fahmo uu daawado had game-ka ana qaadanayay game-ka ka horeeyay dabcan wuxuu ku dhacay 2.83 meelahaas ku dhacay Soomaaliya adi xisaab 83 ee la socoto ku dhacay soo marka 83 markuu ku dhacay automatically waxa dhahay game-kan 1.5 uu gaaraya sababta 1.5 uu gaari karaa oo dhahan waxay ahayd game-ka 8 marka laga jaro 3 xisaab ahaan waxay noqonaysaa 1.5 soo marka meeshiis ugu hooseysa probability-ga xisaabsaday 1.4 kaga dhigtay game-ka I think inuu 1.5 ku dhacay anagana sidaas dabcan $1,000 ku helnay oo dabcan fast targetkeeni waa ku hidgareeno $1,000 ah qofka 500 hadii uu qaato $500 commission ay soo hareyso waana dabcan lacag fiican uma baahni marka inaad si ciyaaro algorithm-kana hal game oo kaliya hadirtan u baahday inaan ku ciyaaro maadaama waqtigeyga inta ugu badan ku soo bixiyay $671 oo dabcan inta ugu badneed muhiimka ahaana aan soo sameeyay justina u baahnaa wax for sure ah ama signal for sure ina heshid dabcan wuxuu ku xiran tahay in at least games kana wax ka faahantid sidoo kalena dabcan algorithm-ka akhrintiisa wax ka fahansantaa marka waxaan rajaynayaa muuqaalka wax badan ka faahantay sidoo kalena aad ka faa'iideysan doonto marka hadii tadawashada ku riijana ka xashashmada kaaga codsanayna jalka subscribe saarto muuqaalkan aad like saarto saaxiibadan aad la wadaagto automatically mar raba inaad wax risk ah qaato soo marka waxaan sameynaynaa $1,000 baa withdraw gareynaynaa wax risk ah mar rabo automatically hadirtan $1,000 soo ku withdraw gareynay kaliya $3 iyo 8 cent account ku soo haray $1,000 soo ku dabcan ku withdraw gareynay marka mar rabo inaan muuqaal ku dheeraado hadii tadawashada ku riijana ka xashashmada kaaga codsanayna jalka subscribe saarto muuqaalkan like saarto saaxiibadan la wadaagto si iyagana wax uga faa'iidaan muuqaaladan halkan ku soo gudbino waana ku mahadsantahay daawashada muuqaalkan